Ohio ma nabad baa hoygii gobonnimadow ma nabad baa horyaalkii dal jacaylkow ma nabad baa hormuudkii samafalkow ma nabad baa salaan kadib waxaan reer Ohio uga mahad celinayaa sida xurmadda iyo wadajirka leh aad igu soo dhaweyseen magaaladiina si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa madaxda iyo dhalinyarada firfircoon ee ururka Somali American Political Action Committee SAPAC oo noo suurtageliyey noona soo agaasimay xafladan aadka u quruxda badan waxay farxad gelisay oo aan idinku bogaadinayaa sidaad u jeceshihiin ee qalbiyadiinnu ugu xiran yihiin dalkeenna hooyo xogogaal ugu tihiin xaaladda dalka faham iyo aragti cadna aad ka haysataan dowlad dhiska Soomaaliya kaalin laxaadna uga qaadataan samafalka iyo dadaalada lagu samata bixinayo dadkeenna tabaalaysan waxaan reer Ohio ku diirsaday oo aan idinku hambalyeeynaya sida aad nolol iyo fursado uga abuurateen gobolkan aad saameyn iyo miisaan culus ugu dhex leedihiin reer Ohio iyo guud ahaan dalka Mareykanka inaad nolol macno leh iyo mustaqbal ifaya ka dhex abuurataan dal aadan ku dhalan aad soo galooti ku tihiin waxay wax badan ka sheegaysaa kartidiina iyo howlkarnimadiina waxay sidoo kale sawir sax ah naga siinaysaa sida ay u xididaysatay dowladnimada dalkan oo ay hay'adahooda iyo shuruucdoodu dowladani ay u horseeday inay noqoto dalka ugu fursadaha badan dunida uguna dhaqaalaha badan caalamka waa tusaale cad oo ina tusaya sida ay dadka Soomaaliyeed u indhafuran yihiin u dadaal badan yihiin uga gudbi karaan caqabadaha ku horgudban ugana miro dhali karaan fursadaha hor yaalla intii aan joogay Mareykanka waxaan u guurgalay nolosha dadka Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan waxaan xaqiiqsaday aragti aan horay u qabay horeyna u aaminsanaa oo ahayd in dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin karti firfircooni iyo hal abuur ay uga dhex muuqan karaan bulshooyinka caalamka haddii ay helaan nidaam dowladeed oo u suurtageliya inay rumeeyaan riyooyinkooda sidaad la socotaan walaalayaal 34 sano kadib burburkii dowladnimada Soomaaliya iyo muddo rubac qarni ah oo laga joogo yaglalkii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya dalkeenu wuxuu weli ku jiraa xaalad cakiran oo midnimada ummadeennu dhaawacan tahay dalkuna baylaha u yahay damac shisheeye oo ay tusaale nool u tahay duulaanka qaawan ee Itoobiya ku soo qaaday badda Soomaaliya rubac qarni kadib yaglalkii jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya dowladnimadeenna waxaan aaminsanahay inay naafaysay oo ay lahana qaadi laadahay dhaqan siyaasadeed gaamuray oo caqabad ku ah dhisidda iyo tayeynta hay'adaha dawliga ah xulashada dadka karaanka aqoonta iyo ammaanada leh sugidda amniga qaranka kobcinta dhaqaalaha dalka xaqiijinta saraynta sharciga iyo la dagaalanka qabyaaladda iyo musuqmaasuqa dhaqankaas ayaa horseeday inay dadkeennu ka daalaan tiiha aan ku jirno dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxgal ah oo ka quustay dowladnimada dalkana
ay u tahriibaan Yurub, Canada iyo America halka kumanaan qoysas badanna ay ku sii qulqulayaan Kenya, Masar iyo Turkiga iyagoo baadi goobaya nolol u dhaanta tanka taagan dalkooda hooyo. waxaa xusid mudan 30 sano ka hor dalka Rwanda wuxuu ahaa wadan faqri ah ku jira dagaal sokeeye waxayna 100 maalmood gudahood dagaal qabiil isaga dileen dad ku dhow 1 milyan oo qof. 30 sano kadib Rwanda waxay kaalimaha hore uga jirtaa dalalka ugu nabdoon uguna horumarsan Afrika duniduna ay ku tartanto inay maalgashi la aado. sida aad la socotaan mar walba oo dalkan Mareykanku doorasho gelayo sida hadda doorasho ugu jirtaan horumarinta dhaqaaluhu wuxuu kaalmaha hore uga jiraa arrimaha mudnaanta leh ee lagu tartamo. madaxdana waxa lagu kala doortaa aragtidooda siyaasadeed iyo sida ay wax uga qaban karaan arrimaha dhaqaalaha ee ay ka mid yihiin sicir bararka, shaqo abuurka, mushaaraadka, canshuuraha, guriyeynta. waayo dhaqaaluhu wuxuu gundhig u yahay nolosha dalka iyo horumarka dadka dal walba ku dhaqan. haddaba meeshan quruxda badan aad joogtaan haddii aan u barbar dhigno dalkeenni Soomaaliya wax soo saarka dhaqaale ee maanta aan taaganahay ee GDP per capita waa $5 oo kaliya barka celceliska dalalka sub-Saharan Africa oo ah $1580. dalka iyo dawladdeennuna waxay wajahaysaa caqabado ba'an oo maaliyadeed. dakhliga gudaha waxa uu 3% kaliya ka yahay GDP-ga guud ee dalka halka dakhliga canshuurahana uu GDP-geena ka yahay kaliya 2.1%. taasoo aad uga hooseysa celceliska Afrika oo ah 16%. haddii aan dhinaca kale ka istaagno Soomaaliya waxay 5 jeer ka weyn tahay gobolkan hadda aan idinla joogo ee Ohio halka GDP-ga Ohio uu 102 jeer ka badan yahay GDP-ga dalkaas weyn ee Soomaaliya. dunida horumartay waxay mashaariic maalgashi oo ganacsi ka fulisaa dalalka soo koraya oo dhan si ay u xaqiijiyaan isku filnaansho dhaqaale. tusaale kale haddii aan soo qaadano 2010 ilaa 2023 sagaal ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ayaa 2718 mashruuc oo maalgashi ganacsi ka hirgeliyay qaaradda Afrika. muddadaas maalgelintan 71.8 bilyan oo dollar ayaa loo qoondeeyay dalalka sub-Saharan Africa. Koonfur Afrika, Nigeria iyo Kenya ayaa maalgelintaas ka helay ku dhawaad 50% maadaama ay heleen 47%. sababtoo ah ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi oo ay fuliyaan hay-adaha maaliyadda caalamiga ah ee bangiga adduunka ee IFC, bangiga horumarinta tan Ingiriiska, tan Jarmalka, tan Netherland, tan Norway, tan Finland iyo tan Faransiiska. waa hay-ado maalgashada Afrika si ay uga ganacsadaan. si lagula ganacsado waa inaad diyaar u tahay in lagula ganacsan karo. dhaqaalahaas 72 bilyan ka badan ee 13 sano ee la soo dhaafay la geliyay Afrikada Saxaraha ka hooseysa ee sub-Saharan Africa waxaa lagu maalgeliyay kaabayaasha dhaqaale ee dalalkaas ugu muhiimsan. muddadaas 13 sano ah Soomaaliya waxaa dhaqaalahaas uga soo aaday
10 مليون أو دولار أو كلية تاسكا ever أفري طبعا بقول كيبا وحيات وجوه السياسة مالقشي جاي هلين ودمada برا يا كلية وحلقوا مالقليه كدوات 7 بليون أو دولار إثيوبيا وحلقوا مالقليه كدوات 2 بليون أو دولار ما دام لقوا مالقليه 1.7 بليون دولار يوغندا وحلقوا مالقليه إن كدو 1.4 بليون دولار وحاصل مدن إن هذا الشيء مرول بالديار يهين إن أفريقيا كجناح صدام هذه بنك الدون كيسكلا داي اللي رادو IFC ذا كليجد أي الله بكون أي الله بعتني أفرطا وهل سنة كلية ربطا إن يكون مال قشطو والدمدا ساندين شيء 8 بليون أو دولار وحنا سيب درا إن صوماليا وأهدل خيرات كيس الدهين هاي ولا خيرات دبيعة أنا كفا إذا سنكرين فرصة دبيعة وحنا لكربا هدبا ديان صومالين هاي إنا نسويدينو ومحاي سببتا أنو كفا إذا سن لنا محان نقول تاغن إنا كفا إذا سنو وحصوصار كدالكينا كردنا جناحسينا دنيدنا أي نوت ماذا سينو لجناحسي وحال يري عيا الله عظميا waxaa maalgashigaas ama maalgelinadaas xooggan naga hortaagan amnigeena oo aan wali la isku haleyn karin siyaasadda dalka waan xasilnayn hay'adaheena dawliga oo aan sal adag ku fadhin garsoorka dalka oo aan madax bannaanayn shuruucdii dhowr lahayd maalgashiga oo aan jirin iyo musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyay dawladnimadeena ربع قرن كذب يقلل كي جمهورية دي سدحات الصومالية وحن آمن سنة هاي هدي عن صومالين هاي إن نكون خصبنا هاي إن نبدلنا حبلغن كسياسة سيان وحقوق بدلنا نلا شدت كنا دل كي فقر أهنا وحبك كما بدلي كرا نلا شدت كيسة إيو تندل كوردمبا سلاس دراد وحن آمن سنة هاي haddii ay Soomaali ka go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaheena waxaan ku khasbanahay inaan dalka ka hirgelino siyaasad xasiloon dhaqan gelinaa dimuqraadiyad iyo siyaasad loo dhan yahay fursad siinaa isfahamka iyo wada hadalka sidoo wada jir ahna uga shaqeynaa ciribtirka khawaarijta baabiisay ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay haddii ay naga go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaheena waa inaan tayeynaa hay'adaheena dhaqaalaha si aan dunida ula macaamili karno waa inaan dhisno hay'ado u shaqeeya ummadda Soomaaliyeed si aan u helno hay'adahaas waa inaan xulanaa dadka Soomaaliyeed ee ugu kartida aqoonta iyo amaanada badan bulshadeena wiilal iyo gabdhaba hirgelinaa garsoor madax bannaan xaqiijinaa sharciinta sharciga dhaqan gelinaa shuruuc dhiirigelinaysa in maalgashato damaanad qaadnaa ilaalinta hantida iyo xuquuqda lahaanshiyaha sidoo kalena fududeynaa xallinta khilaafaadka ka iman kara maalgashiga dunida nooga imaanayo haddii ay naga go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaha dalkeena si aan bulshadeena wax u tarno waa inaan si wada jir ah ugu istaagnaa la dagaalanka iyo dabarjarka musuqmaasuqa hay'adaheena dawliga ah hay'ad walba oo dawladdu leedahana ka dhaqan gelinaa daafurnaan iyo isla xisaabtan dhab ah haddii ay naga go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaheena waa inaan ahmiyad siinaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dalka ka shaqeynaa shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kobcinta ganacsiyada yaryar taageernaa iskaashiga ganacsatada iyo dawladda
ganacsatada dalka iyo dunidana ku dhiirigelinaa inay maalgashadaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida tamarta warshadaha iyo wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga si daah furan ammaanana ku jirto uga shaqeynaa kamiro dhalinta khayraadka dabiiciga ah ee ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay markii ay burburtay dawladnimadii Soomaaliyeed waxaan ku baxsanay oo samata bixiyay dalkeena iyo dadkeena kaalin hogaamineedna ka qaatay ganacsatada Soomaaliyeed oo hirgeliyay ganacsi kalsooni iyo is-aaminaad ku dhisan waxayna kartidooda iyo howlkarnimadooda uga soo gudbeen caqabado tiro badan caqabadahaas tirada badan oo 30 sano ay soo dhaafiyeen waxayna keeneen maanta meel aan dunida la macaamili karno dunida casriga oo Mareykanku uu ka mid yahay mashiinka dhaqaajiya kobcinta dhaqaalaha waa ganacsato heshay dawlad fahamsan duruuftooda taageerta hal-abuurkooda una fududeysa inay si fudud u ganacsadaan waa inaan dhiirigelinaa oo garab iyo gaashaan u noqonaa ganacsiyada Soomaaliyeed xoojinaa kalsoonida ay dunidu ku qabto ganacsatadeena isuna furnaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay'adaha maaliyadda adduunka taas macnaheedu waxay tahay marka ay ganacsatada Soomaaliyeed guuleysato waxa kobcaya dhaqaalaha dalka waxa yaraanaya faqriga iyo sicir bararka waxaana kordhaya shaqo abuurka dawladda Soomaaliyeedna waxay helaysaa canshuur shacabka loogu adeegi karo haddii si hufan oo ammaano leh loo maareeyo dadka Soomaaliyeed meel walba oo aan joogno waxaan wada qirsanahay in tiihu nagu daba dheeraaday waxaana dhibanayaal kulligeen u wada nahay xaaladda cakiran ee maanta dalkeenu ku jiro waa aragnay in jidkii aan ku soo xiiqnay welina ku joogno aan lagu gaarin dawladnimo taabagal iyo horumar lagu diirsado leh sidaas daraaddeed waxaan dhammaanteen shacab iyo dawlad rag iyo dumar caruur iyo ciroole daljoog iyo qurbo joogba ku khasbannahay inaan isku samayno dib u eegis waa inaan isku samaynaa dib u eegis iyo qiimeyn dhab ah waxna ka baranaa sooyaalkeenna iyo khaladaadkeennii hore dibna u heshiisiinaa bulshadeenna ku kala irdhowday dagaaladii sokeeye waxaan aaminsanahay in tirada dadkii aan iska dilnay 30 sano ee la soo dhaafay aysan dhammayn 1 milyan ee shacabka Rwanda isaga xasuuqeen 100 maalmood waa inaan wax ka baranaa sida ay reer Rwanda uga heshiiyeen dagaalkii sokeeye uguna heshiiyeen inay xalay dhalay ka noqdaan wixii soo kala gaaray waana wax ka baranaa sida ay u go'aansadeen inaysan dib ugu laaban oo ay hore ugu socdaan jidka nabadda iyo horumarka waxaan soo jeedinayaa haddii aan Soomaali nahay inaan bedelnaa habdhaqanka siyaasadeed iyo habfikirka bulsho ee ummadda Soomaaliyeed waa inaan qabyaaladda ku bedelnaa Soomaalinimo musuqmaasuqa ku bedelnaa ammaano tafaraaruqa ku bedelnaa midnimo kalitalisnimada ku bedelnaa wada tashi xifaaltanka ku bedelnaa iskaashi fadhi ku dirirka ku bedelnaa hawl iyo waxqabad halbeega hadalkana ku bedelnaa itus oo itaabsii yaa tahayna ku bedelnaa maxaa taqaanaa gacmo wada jir ay wax ku gooyaan
سجار وحان رير وهايو إذن كوكو باقيا إناد حوجيسان ودجيركينا يمن مدينة إسو كاشتان سماها يهرو مركا إسو فرطان قلبية دينا أو أول يدير كيد إسو نغطان وحان كوكو باقيا إناد صومالي نمدو هرمودو نغطان dhaqangelinta Soomaalinimadana idinku aad ummadda Soomaaliyeed ugu horeysaan waxaan soo qaadanaynaa kulligeen xadiiskii nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo sida ay muuminiintu isu jecel yihiin isugu naxariistaan isuguna dhimriyaan ku tusaaleeyay shirk sidii jirka bini'aadamka oo haddii xubin ka mid ahi bukooto jirka oo dhami la qaybsanayo xanuunka qandhada iyo dhafarkaba waxaan sidaas daraaddeed idinku dhiirigelinayaa idinkuna baaqayaa inaad sii laba jibaartaan sida aad caqligiinna cilmigiinna iyo cududiinna uga qayb qaadataan horumarka dalkeenna iyo samata bixinta dadkeenna waxaan codkayga ku biirinayaa warbixinta uu nala wadaagay walaalkay Soofe oo halkan ka soo jeediyay ee ku saabsan burburka baahsan ee ku dhacay buundooyinka Baardheere Luuq iyo Buurdhuubo kaas oo saameeyay nolosha isu socodka dhaqaalaha iyo horumarka deegaankaas waxaan ka xumahay oo dareenka la qaybsanaya shacabka Soomaaliyeed iyo deegaankaas ku wajahaya duruufo adag waxaana madaxda dawladda ganacsatada Soomaaliyeed hay'adaha horumarinta ee ka shaqeeya dadka dhulka Soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed u baaqaya inay ka qayb qaataan sidii loogu gurmo lahaa dadkaas walaalaha dibna loogu dhisi lahaa buundooyinkaas si wax looga bedelo nolosha shacabka deegaanadaas ku tabaalaysan anigoo ka mahad celinaya sida sharafta iyo karaamada leh oo la ii soo dhaweeyay waxaan ku soo gunaanadayaa dhaxtaalka maansadii uu Allah u naxariistay abwaan Yuusuf Aadan Xuseen Alaale nagula dardaarmay oo ku aadaneed inaan iskaashano oo gacmaha isqabsano waa kiina yiri shicibyo wanaagsani wadnahaygii rumaadow wada jirbay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweeshana walaalayaal mar kale waa maasantiin walaalahayo Allah idin barakeeyo